kulanti wanaagsan daawadayaal magacaygu waa Maxamuud Soomaali janalka daawanaysaana waa Gosol Production waxa la sheegaa inuu jiray waa hore boqor kamid ah boqoradii reer Saasaan taasoo dhacda galbeedka Hindiya iyo Sandi wuxuuna ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaaleba wuxuuna dhalay laba wiil oo kan weyn la oran jiray boqor Shahriyaar kan yarna boqor Shahzamaan waxa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday xanuunkiisii geerida kadibna isugu yeeray labadiisii wiil ee amiirada ahaa wuxuuna u sheegay in boqortooyada uu kala qaybiyay oo midba goonidiisa wax u xukmin doono oo aysan isku xadgudbin kadib markii uu boqorkii weynaa dhintay labadii wiil sidii ayay yeeleen mid kasta boqortooyadiisii ayuu maamushay muddo markii ay ka soo wareegatay oo aysan is arkin ayaa waxa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaar u xiisay walaalkiisa ka yar wuxuuna u qoray fariin uu sheegayo inuu u xiisay una u yimaado boqorkii yaraa wuxuu ka yeelay hadalka walaalkiisa wuxuuna go'aansaday inuu u safro maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa markuu muddo jidka ku soo jiray ayuu wuxuu soo xasuustay inuu iska soo ilaaway hadiyad qaas ahayd oo uu talagalay walaalkiisa ka weyn sidaas darteed dib ayuu u soo noqday wuxuuna qasrigiisii ku soo noqday waqti habeen ah markuu qolkiisii soo galay ayuu wuxuu arkay arin argagax leh aana uga fajacisay wuxuu arkay xaaskiisa oo adoon sariirta la saaran yahay boqor Shahzamaan ayaa markuu arkay arintan ayaa adduunka la madoobaaday wuxuuna isiri hadiiba naagtan falkan ku dhacday adigoo aanan waliba magaalada toos uga bixin maxaa dhici lahaa hadii aad maalmo sii maqnaan lahayd markaas ayuu go'aansaday inuu labadaba qoorta ka gooyo isagoo kurka ka wada jaray kadib boqorkii isagoo murugaysan ayuu iska soo baxay wuxuuna u yimid walaalkiisii iyo boqortooyadii uu ka talinayay kadib boqorkii Shahriyaar aad ayuu ugu farxay imaatinka walaalkiisa ka yar si fiican ayuuna u soo dhaweeyay laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa ka yar faraxsanayn markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii kadib boqorkii weynaa wuxuu u sameeyay una diyaariyay mowqif si ay ugaarsi iyo tamashleen u aadaan isagoo ugu dan lahaa in walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugada u ilaabo maalintii la bixi rabay ayuu boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo kadib walaalkiisii weynaa iyo kooxdiisii kaligood ayay ugaarsi tageen boqorkii yaraa isagoo qolkiisa isaga jira aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa oo xigtay dhinaca beerta ee qasriga shanqar ka dareemay markaas ayuu dhinacii soo aaday muxuu arkay wuxuu arkay arin ka yaabisay tii haysatayna ka daran waxa beerta qasriga soo gashay dumaashadiisa uu qabay boqorkii weynaa oo adoon gacanta ka haysta iyo 20 jaariyadood oo mid kasta adoon gacanta ka haysto halkii ayaana tumasho la galay markaas ayuu boqorkii yaraa ee Shahzamaan isiri wale dhibtii ku haysatay waxa ka daran kan walaalkaaga maanta haysata wuxuuna go'aansaday inuu iska ilaabo murugtii haysatay caadina iska noqdo markuu soo laabtay boqorkii Shahriyaar wuxuu dareemay isbedelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shahzamaan wuxuuna go'aansaday inuu weydiiyo markii dambe ayuu weydiiyay wuxuuna ku yiri walaal markii aad halkan iimaanaysay waxa ka muuqatay murugo iyo tiiraanyo laakiin hadda caadi ayaa tahay ee waxaad ii sheegtaa waxa murugta ka keenay iyo waxa murugta ka qaadayba wuxuuna ku jawaabay boqorkii yaraa waa ku sheegaya waxa murugta iga keenay laakiin kuma sheegayo waxa murugta iga qaaday markaas ayuu boqorkii weynaa yiri waa yahay bal ii sheeg waxa murugta ku keenay markaas ayuu ugu sheekeeyay arintii uu la kulmay xaaskiisa iyo adoonkii sariirta la saarnaaba markaas ayuu boqor Shahriyaar yiri ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa kurbadaas saas u weyn ka qaaday markuu ku adkeeyay ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay boqorkii weynaa uu rumaysan waayay markaas ayuu walaalkiisa ka yaraa ku yiri hadaad beentayda u malaynayso dadka isugu waco ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaan aadaynaa markii la baxana inta aad soo dhuumato qolkayga soo gal boqor Shahriyaar sidii ayuu sameeyay kadibna maxaa dhacay wuxuu arkay xaaskiisii iyo adoonkii iyo wixii walaalkiisa uu sheekeeyay intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtan intaan qayb lamida ku kulmi doono waxaan kaga taginaa sida iyo amaano Allah hadaba hadii aad channelka ku cusub tahay
fadlan waxaan kaa codsanaynaa in aad subscribe saarto si video kasto aan soo gelino kugu soo dhaco gambaleelkan aad furato siina share gareyso videogan ama sheekadan haddii ay ku qancisay.